Bisada waa xayawaan caan ah haddii aysan ahayn midda ugu caansan xayawaanada. Waxay ka tirsan tahay qoyska Faladiya waxaana badanaa loogu yeeraa bisada guryaha siday uga soocan tahay xubnaha kale ee duurjoogta ah ee qoyska. Qiyaastii 60 nooc oo bisad ah ayaa la aqoonsan yahay diiwaanada bisadaha ee kala duwan, waxayna la mid tahay anatomiga waana mid ka mid ah noocyada kale ee jirrada leh. Waa ugaarsade laakiin waa nooc bulsho, waana ugaarsade firfircoon waa berigii iyo fiidkii. Waxay ugaarsataa in ka badan 1000 nooc oo xayawaan ah. Waxaa muddo dheer culummada abla-ableeya xayawaanada sheegaan in bisada lagu arkay Masar, maxaa yeelay bisadaha ku yaala Masar ee qadiimiga ah ayaa la caabudi jiray qiyaastii in ka badan 3000 oo BC. Kooxda bisada ah waxaa loo yaqaanaa Cloudar, halka midka labka ah loo yaqaano Tom, midka dhadigana waxaa loo yaqaanaa Molly, halka kuwa yaryarna loo yaqaan Kittens. Dhadigu waxay dhali karaan inta u dhaxayso 2 ilaa 5 cunug. Saynta dambe ee bisada waxay gaartaa 30 sentimitir oo dhirir ah, wuxuuna culeyskeedu gaaraa bisadu 4 ilaa 5 kilogaram. Midii ugu cusleed ee diiwaanada gashana waxay ahayd 21 kilogaram. Midda ugu weyn ee duurjoogta ah ee maanta nool waxaa loo yaqaanaa Serbian Tiger, waxaana dhirirkeedu gaaraa 3.6 mitir, miisaankeeduna wuxuu gaaraa 317 kilogaram. Wejiga hore ee bisada wuxuu ku xiran yahay garbaha, waana sababta u ogolaanaysa inay jirkoodu maraan meel kasta oo ku habboonaan karto madaxooda. Kuwa waaweyn waxay leeyihiin 30 ilig, halka kuwa yaryarna leeyihiin 26 ilig oo ku meel gaara, waxayna lumiyaan markay jiraan qiyaastii 6 bilood. Bisadaha badanaa waxay seexdaan 12 ilaa 16 saacadood maalintii, inkastoo kuwa qaar ay hurdi karaan 20 saacadood ilaa 24 saac gudahood. Waxayna leeyihiin maqal aad u fiican iyo dareen xoog badan, dhagaysigooduna celcelis ahaan ugu yaraan 5 jeer ayuu ka wanaagsan yahay kan qofka weyn ee aadanaha ah. Caqli ahaan bisada waxaa dhaafay keliya daanyeerka iyo jambiska, waxayna ku fekeraan oo la qabsadaan duruufaha isbedelaya, waxayna wax ku bartaan indhaynta iyo ku dayashada iyo tijaabada. Tijaabooyin ay sameysay jaamacadda Michigan iyo waaxda dabeecadaha ee xayawaanada ee Madxafka Mareykanka ee taariikhda dabiiciga ah ayaa lagu soo gabagabeeyay in bisadu ay socon karto 16 saacadood, taasoo xitaa ka wanaagsan daanyeerka. Dhanka fahanka iyo tababarka bisaduhu ma ahan sida eeyaha, laakiin waxay wax ku fahmi karaan erayo iyo amarro badan oo aadmiga ah sida garaacida albaabka. Mana lahan bisadu sunniyaal, mana haysato qanjirada dhididka sida bini'aadamku leeyihiin. Hiwaayadaha tartanka soo bandhigida bisadaha waxaa loo yaqaanaa cat fancy. Sanadkiina dhaafay ee 2019 boqortooyada Ingiriiska ayaa loo diiwaan geliyay ku dhawaad 7 milyan oo bisadood inay noolaayeen 4.8 milyan oo qoys. Jasiiradda Aoshima waxay dhacdaa waddanka Japan, waana mid ka mid ah tan ugu badan ee laga helo bisadaha. Celcelis ahaan waxay noolaadaan bisaduhu qiyaastii 12 ilaa 15 sano. Haddii fiidiyowgan waxuuna ka faa'iiday, fadlan nagu soo biir oo furo gambaleelka si aad uga mid noqoto daawadayaasha daawado barnaamijyada aanu soo gudbino.